السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي قيمها بدن كسو دوادا جنال كيفتينك قويسكا وولاشين سهر عبد الكريم. هداد هورنا ولا جوجتي آدي umahadsantahay haddaad nagu cusubtaan ku soo dhawow gacmo furan janaalka waa janaalkaaga subscribe saar janaalka gambaleelkana taabo si uu kuu soo gaaro muuqaal walba aan soo dhigno waana ku mahadsantiin asxaabteeda sida qiimaha badan aad ula socotaan janaalka mahadsanidin. قصة حنون بدن ويل هويديس ka doortay xaaskiisa horaa waxa loo yiri nimaad dhashay kuma dhalin qisadeena waxay ku bilaaban doontaa sidatan hooyo ayaa la deganayd wiilkeeda wax caruur ahna asagoo kaliya ayay ka dhashay wuxuu lahaa xaas iyo caruur maalin maalmaha kamid ah ayuu hooyadiisa ayadoo qolkeeda joogto ugu yimid wuxuuna ku yiri hooyo waxaan rabaa guriga oo dhan inaan dib u habeen ku suubiyo kadibna aan dikoor qurux badan saaro marka hooyo waxaan rabaa dhowr cisho ay hawsha socoto la degtid habaryar ama abti intaasna aad la noolaatid waxay ku tiri hooyo qolkayga waad aragtaa waxa uu qabo ma jirto sidaas buuna u egyahay ee hooyo maad iska dhaaftid wuxuu dhahay maya hooyo sida ugu dhaqsiyaha badan waa inaad habaryar tagtaa markii uu ka dhaafi waayay hadalkii aadna ugu dhibay bay waxay ku tiri waayahay wiilkaygiyo waxayna u tagtay walaasheeda yacni wiilka habaryartiisa waxayna u sheegtay qisadii in guriga la hagaajinayo muddo yar kadibna ay ku laabanayso guriga wiilkeeda wax dhib ah ma lahan ayay ku jawaabtay habaryartii waxayna ku tiri walaal guriga waa gurigaaga maalmo ayaa ka soo wareegtay wiilkeedii ma soo wicin xaaladeedna dib uma soo wareysanin fariin uma soo dirin hooyadiina ilaa waa beer wax dhale waxay bilowday in wiilkeedii ay ka walwasho dhowr mar ay teleefanka ka wacday mar walba oo teleefanka qabtana wuxuu ku yiraahdaa mashquul baan ahay aniga ku soo wacayo ama waan degdegsanahay markale igu soo celi hooyo waxa ka soo wareegtay dhowr isbuuc bil 2 bil 3 bilood markii ay soo wareegtay ayay waxay walaasheeda ku dhahday yacni wiilka hareertiisa walaalay walwal baan la joogi laahay wiilkaygii waayahan waxba warka ma hay warkiisana ma maqlan ee kaale iraac aan soo fiirinay xaaladiisa alla wanaagsanaan lahayda inaysan u tagin way is soo raaceen ayada iyo walaasheeda gurigii bay soo gargaraaceen waxa ka furtay ummu axmed yacni wiilkii xaaskiisa ayay isdhaafsadeen caruurta xaaladahooda ayay wareysatay hooyadii intaas kadib hooyadii waxay dhahday wiilkaygii Abu Axmed ka waran waayahan wax warkiisa ah ma aanan maqlin ma joogaa ummu Axmed waxay tiri islaan yahay dhageyso wiilkaaga wuxuu ku yiri gurigaan booskaaga ma banaana qolka aad degnaydna waxaan u hagaajinay gabadheedii oo hadda weynaatay ee islaan yahay marna ha ku riyoonin in aad ku soo laabatid gurigan walaashaada la deg markaad lacag u baahatidna soo subxaanaka yaa ilaahi intaas markay tiri baa waxaa yimid wiilkeedii alla fiicnaan lahayda inuusan imaan intoo dhinaca xaaskiisa istaagay ayuu waxa uuna yidhi haa hooyo wallaahi haddaan lacag u bahatid daqiiqad kaala soo daahimaayo ee walaashaada la deg hooyadii oo elinta ka qubanaysa ayay waxay tiri wiilkaygiyo hooyo masax baa ummu axmed hadalka ay leedahay wuxuuna yidhi haa hooyo gurigan waa kaaga dhamaatay subxaanallah waa binaadan nuucee ah qalbi damqanaay ku yaalo miya rabbi naxariis badana hadaanan dhulka la goonin wiilkaas hooyadii baa hal mar afka kala qaaday ilintana ay ka qubanayso waxayna tiri wiilkayga sooma tihid maxaad sidan iigu galaysaa miyaanan hooyada ahayn miyaanan kugu soo rafaadin miyaanan 9 bilood caloosha kugu qaadin miyaadan xasuusan hadii wax yar aad xanuunsatid in aan kula xanuunsan jiray oo habeenkii oo dhan kula dhafri jiray miyaadan ogeyn meeshii ay adiga wax ka gaari lahayn badalkeed aan jeclaan jiray inay aniga igu dhacaan miyaadan ogeyn in aan sugaayay inta aad ka weynaato oo aad awlaad ka dhasho maxaaskaaga ayaad iga dooratay waxaas oo dhan maanta waxaad iigu abaalgudday inaad banaanka igu tuurtid sida qashinka oo kale ayada oo ilinta ka qubanaysa wiilkaygana ku haysa ayaa iskaga tagtay gurigii laa ilaaha illa allah muhammadar rasuulullah billah calayk suurayso hooyada oo saas aad ku tiri oo aad guriga ka ceerisay ama xaaskaaga ay guriga ka ceerisay hooyada alla maxay hooyooyin badan ku dulman yihiin adduunka walaal hooyada adiga ay xilka saaran tahay xaaskaaga maalinta qiyaamo lama weydiin doono hooyada ee haday kula degan tahay hooyada gurigaaga jannada qayb kamid ah inay dhex taalo ogow gabadha ay la degan tahay sadohdeedna Allah ku abuurtay ugu baq waa hooyada oo kale wax walba aad ku suubinaysid haday khayr iyo sharba tahay
tahay intaan aakhiro la gaarin adduunka ayaad ku helaysaa oo carruurtaada ayaad ka arkaysaa. Allow waxaan ku weydiisanaynaa raali ahaanshahaaga iyo raali ahaanshaha waalidkeena.